xisbiga dalka sidaan maanta isu xasuusinayno oo aan intaan isugu yeernay waxaan rabnaa inaan sheegno inaan diyaar u nahay horena aan diyaar u ahay una soo joogsanay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay mar labaad in loo istaago midnimadeedii iyo madax bannaanideedii in loo istaago u baahan tahay naguma filna kaliya way fiican tahay inaan heesaha iyo guwaabada isu sheegno laakiin waxaan laga maarmaynin inaan u istaagno annagu waxaan rabnaa arrintaas inaan hormuud ka noqono waxaan rabnaa inaan idiin sheegno maanta annagoo munaasabadan ka faa'iidaysanaynaa inaan idiin sheegno arrintaas hormuud inaan ka noqono Soomaaliyana sida ay tahay inaanan mataqaana lagu aqbali karin oo aan raalli uga ahayn isbeddelkaasna hormuudnimo u baahan yahay xisbiga dalji waxaan rabnaa idiin sheegno maanta inuu diyaar u yahay xisbiga dalji waxaan rabnaa idiin sheegno maanta inuu diyaar u yahay xisbiga dalji waxaan rabnaa idiin sheegno maanta inuu diyaar u yahay walaalayaal suurtagal mar walba waxaa ma noqon karto markii meertada siyaasadda la gaaro meertada 4 sano 5 sano soo wareegta markii la soo gaaro in damac shakhsiyeed lagu dooriyo in damac shakhsi lagu dooriyo oo aanan qorshe qaran iyo aragti qaran aan lagu doorinin waddanka xaaladda ka jirta taas waxaan u baahanahay inay isbedesho waxayna u baahan tahay hoggaan waxayna u baahan tahay dad u soo istaaga annagu maanta waxaan rabnaa annaga haddaan idhaahno waxaan tilmaamaynaa xisbiga dalka waxaad aragtaan damac shakhsiyeed markaan leenahay waxaan wadanaa annaga oon rabnaa inaan la soo horjoogsanno aragti xisbiyeed aragti urureed SYL ma ahayn ashkhaas ma ahayn waxay dad Soomaaliyeed oo ku midoobay xornimo gaarsiinta Soomaaliya waxaan u baahannahay sidaas oo kaleeto dad ku midaysan Soomaalinimada ku midaysan xisbiga dalka wuxuu rabaa marka sidaan hore u tilmaanay inaan kuwaas aan ka dhigano example oo dayasho mudan inaan ka dhigano u baahannahay dad Soomaalinimo ku midaysan kana saari kara maaragtay duruufaha adag ee waddankeenu maanta uu ku jiro marka qorshe siyaasadaysan oo xisbiyeysan ayaa xisbiga daljir diyaar u yahay waxaad la socotaan oo maanta la soo meelmariyey oo la soo ansixiyey oo runtii wax weyn oo taariikhi ah waxaana ku mahadsan baarlamaanka Soomaaliya oo anagu aan qayb ka ahay oo saaxiibaday hor fadhiya qayb ka yihiin in xisbigii axsaabta la hirgeliyay ayada laftigeedu waa arrin loo dabaaldega mudan waxay tahay arrintaasu in dadka Soomaaliya ka gudbi karaan qabiilka lagu abaabulay siyaasadda in qabiilka lagu abaabulay siyaasadda la gudbi karo oo loo gudbi karo siyaasad ku dhisan aragti iyo qorshe iyo program ku dhisan xisbigu mar labaad waxa way arrintaas ku rabaa in hormuud ka noqdo oo uu ka dhabeeyo mar labaad waxa way arrintaas ku rabaa in hormuud ka noqdo oo uu ka dhabeeyo xisbigu mar labaad waxa way arrintaas ku rabaa in hormuud ka noqdo oo uu ka dhabeeyo dadka Soomaaliyeedna uu soo horjoogsado walaalayaal annaga waxa naga qaldan aragtideena say nala tahay xisbiga dalka Soomaaliya hadaanuna waxa way nidaamka xukunkeena naga qaldan nidaamka xukunka ayaa naga ansaxno ayaa dawladnimadeena saxmaysaa waxa naga qaldan waxa la yiraahdo dhaqanka siyaasadeedka naga qaldan waxa way waxaan u dhawaanaynaa gobonnimadeennii dawladnimadeennii iyo xorriyaddeennii madax bannaanideennii ayaan u dhawaanaynaa xisbiga daljir mar labaad intaasaan soo sheegnay wuxuu rabaa in hormuud ka noqdo si ficil ah oo aanan ahayn keliya hadal afka laga yiri keliya aanan ahayn xisbiga daljir mar labaad intaasaan soo sheegnay wuxuu rabaa in hormuud ka noqdo si ficil ah oo aanan ahayn keliya hadal afka laga yiri keliya aanan ahayn